taariikhda faca weyn leh ee Cusmaaniyiintu waxay bilaamatay taariikhdu markay ahayd 1299 ilaa 1424 taasi oo ahayd dowlad islaami ah oo uu aasaasay Cismaankii koowaad iyadoo xukuntay dhul badan oo ka mid ahaa Aasiya, Bariga Dhexe iyo wadamada Geeska Afrika iyo sidoo kale wadamo ka mid ah Yurub. Boqortooyadan Cusmaaniyiinta waxaa saldhigeeda ama xarunteeda ugu weyn ahayd magaalada Istanbul ee maanta ka tirsan wadanka Turkiga. Haddaba sanadku markuu ahaa 1250 miilaadiga kuna beegan sanadkii 600 ee hijriyada, waqtigaasi oo Tataarkii uu hogaaminayay Holaako ay qabsadeen Baghdad isla markaasina ay dad iyo dunyaba baabiyeen oo ay dumiyeen dowladii Cabbaasiyiinta ee muddada dheer isku xidhaysay muslimiinta caalamka, ayaa waxaa Aasiyada yar gaar ahaan magaalada Sogod oo ahayd meel laga maamulo magaalada weyn ee Binu Shahiir waxaa ku dhashay Cismaan binu Ardoqol oo ah ninka ay ku abtirsato dowladda Cismaaniyiintu, taasi oo qarniyo badan hogaaminaysay ummadda muslimiinta. Haddaba aan taariikhdeeda dib u yara milicsano, Turkiga oo ka soo hayaamay gobolka Sikiyaan maanta loo yaqaano ee Shiinuhu xoogga ku haysto, muslimiintuna ay u aqooni jirtay dhulka Turkiga bari ama Turkistaan Afriqiya, ayaa waqtigaasi Turkigu sameeyeen 3 hayaan, waxaana inta la xasuusto hayaankii u horeeyay sameeyay qolada maanta loo yaqaano Bulgaariya, kuwaasi oo islaamka ka hor soo hayaamay oo la soo kulmay diinta Kiristaanka, sidaasina ku noqday Kiristaan. Labada qole ee kale waxa iyagu soo hayaameen markii ay diintu soo gaadhay iyagoo soo degay dhulka Aasiyada yar, waxaanay kala ahaayeen Salaajiqada iyo Cismaaniyiinta. Bilowgii qarnigii 11aad ayaa Suleymaan Shaah oo duqbeeleed u ahaa beesha Kahay oo dowladda Cismaaniyiintu ku abtirsato hayaan soo geliyay beeshiisa, isagoo ka soo raray dhulkii uu Turkigu asalka u lahaa ee xadka Shiinaha. Suleymaan Shaah oo Cismaanka koowaad awowgii ahaa waxa uu ku haftay webiga Furaad markii ay talaabayeen, waxaana uu maanta ku aasan yahay meel ka mida dhulka Suuriya. Suleymaan Shaah markii uu halkaasi ku geeriyooday, labadiisii wiil waa isku khilaafeen, iyagoo isku khilaafay soo jeedimo uu midba midka kale u soo jeedinayay oo ahayd inuu mid dhaho aynu ku laabano dhulkii hooyo, ka kalena lahaa aynu hayaanka aabaheen bilaabay aynu sii wadno ilaa aynu ka gaadhayno meesha uu hiigsanayay. Kadib khilaafkaasi waxaa go'aan ka gaadhay Ardoqol oo lagu tiriyo aasaasihii koowaad ee dowladda Cismaaniyiinta, waxaana guud ahaanba meesha soo galay khilaafka sababay in beelihii ka tirsanaa xukunka Suleymaan Shaah ay kala jabaan, iyadoo qaarkood ay dib ugu laabteen goobtii uu hayaanka ka soo galay aabahood, halka Ardoqol iyo kooxdiisuna ay hayaanka sii wadeen iyagoo gaadhay dhulka Aasiyada yar oo ay kula kulmeen boqortooyadii Salaajiqada oo halkaasi muddo deganayd oo waqtigaasina dagaal kula jirtay dowladii Roomaanka, taasi oo kooxdii Cismaaniyiinta ku riixday inay dagaalkaasi ka qayb qaataan iyagoo u hiilinaya dhigooda Salaajiqada, dhabarjabin weynna ku sameeyay ciidamadii Roomaanka. Boqorkii Salaajiqada oo la oran jiray Calaa-udiin Kiga ayaa si weyn u soo dhoweeyay miciinkaasi uu ka helay dhigiisa Cismaaniyiinta, wuxuuna halkaasi dhulka siiyay kooxda Ardoqol hogaaminayay, waxaana intaasi kadib Ardoqol uu bilaabay inuu halkaasi ka aasaaso boqortooyada caanka noqotay ee Cismaaniyiinta, isagoo guud ahaan deegaanadii ku agdhowaa dhul ballaadhsi ku sameeyay oo qabsaday qaybo badan oo ka tirsan dhulka boqortooyada Salaajiqada. Dhul ballaadhsigaasi kadib waxaa ku xigtay geerida Ardoqol, kaasi oo uu dhaxlay wiilkiisa Cismaan Ardoqol sanadkii 1281, waxaana Cismaan uu talada hayay intii u dhaxaysay 1281 ilaa 1326, waxaanu bilaabay dagaal xoog leh isagoo diyaarsaday mujaahidiin diinta islaamka lagu abaabiyey, qur-aankana la xifdisiiyey. intaasi kadib jihaad lixaad leh buu ku qaaday dowladii Bisandiya oo deris la ahayd, durbadiina waxa uu dhisay cudud militari oo xoog leh, waxaanu samaystay dowlad adag iyo ciidan adag, isagoo bilaabay halgan adag oo uu ku buuxinayo halkii ay banaysay dowladii Salaajiqada. kadibna waxay
dagaal la galeen dowladdii Bisandiyiinta oo haysatay dhul ballaadhan oo ka mid ah Aasiyada yar. intaasi kadibna jihaad laxaad leh buu ku qaaday dowladdii Bisandiya oo deris la ahayd. durbadiiba waxa uu dhisay cudud milatari oo xoog leh, wuxuuna samaystay dowlad adag iyo ciidan adag, isagoo bilaabay halgan adag oo uu ku buuxinayo halkii ay banaysay dowladdii Salaajiqadu. kadibna waxay dagaal la galeen dowladdii Bisandiyiinta oo haysatay dhul ballaadhan oo ka mid ah Aasiyada yar, iyagoo qarnigii koowaad gacanta ku dhigay kana soo rogay badda madow ee Oytamarmara, kadibna ugu tallaabay marinbiyoodka Dandaneh ee dhinaca Yurub. markaasi oo ay dagaal aad u qadhaadh la galeen dowladihii ku yaalay jasiiradlamooda Poland. intaasi kadib waxaa Suldaan Cismaan xilka uga sii dambeeyey inankiisa oo la odhan jiray Suldaan Oor-Khaan Cismaan. sidaasi ayayna ku hana qaaday mid ka mida boqortooyada ugu taariikhda weyn leh Islaamka, iyadoo sanadkii 1920kiina ay dowladaha reer galbeedku ay qaybiyeen dhulkii Cismaaniyiinta kadib awood darro baahsan oo soo wajahday dowladdaasi. waxaana Cismaaniyiinta si weyn loogu xasuustaa guluf ciidan oo awooddiisa iyo mabaadi'diisa oo keliya ku toosan, isla markaasina si adag uga talin jiray dhulka ay deganaayeen, iyadoo wakhtiganna ay boqortooyada dhulkeeda ay ka soo hadheen oo keliya dhulka maanta loo yaqaano Turkiga oo kooxdaasi ay ka soo tafiirmeen. kala soco CBA TV taariikhda Cismaaniyiinta oo taxane ah. Shabcaan Maxamed Xaaji Dhagax, CBA TV. hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa kuu bilaash. isticmaal shabakadda ugu ballaadhan geyga Somaliland. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees. tayo waa Telesom.